السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhowaada daawadayaasha Epic Channel. muuqaalkiina maanta wuxuu daaran yahay farqiga u dhaxeeya qur'aan iyo musxaf. haddii aadan kala garanaynin daawade farqiga u dhaxeeya qur'aan iyo musxaf, daawo muuqaalkani si aad u ogaato. fadlan daawade, haddii aad nagu cusub tahay, gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub, asxaabtaadana u sheergareey. dadka inta ugu badan ma garanayaan farqiga u dhaxeeya qur'aan iyo musxaf. inta badanna waxay u malaynayaan in ay isku mid yihiin. ilaahay idinkii, muuqaalkani maanta waxaan ku soo gudbin doonnaa farqiga u dhaxeeya qur'aan iyo musxaf si kooban. qur'aanku waa hadalka ilaahay casa wajalla uu ku soo dejiyey nebi moxamed, naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee, wuxuuna ilaahay u soo dhiibay malakul jibriil. waana xujada ugu weyn ee loo soo dhiibay suubanaha, naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. musxafna waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo lagu qoro qur'aanka kariimka, tusaale, waraaqad, harag iyo wax kasta oo qur'aanka dhexdiisa lagu qoro. sidaa daraaddeed waxaa qalada inaad tidhaahdo daawade, waxaan soo gatay qur'aan, waayo qur'aanka lama gado. laakiin waxaad dhihi kartaa, waxaan soo gatay musxaf. الله أعلم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.